Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan barnaamijkeena qisada guusha ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah dhalinyaradii abuurtay shirkadda Google, taa oo maanta dunida caan ka ah, isla markaana qof walba oo adeegsada internetka uusan ka maarmin isticmaalidda Google-ka. Google-ka wuxuu dhadhan wanaagsan u yeelay shabakadda internetka. Haddii uusan Google jiri lahayn, internetka wuxuu ahaan lahaa cunto aan cusbo lahayn. Maanta ardayda iyo qof kasta oo baara ah wuxuu adeegsadaa oo xogaha ka raadiyaa Google-ka. Haddaba Google-ka wuxuu fududeeyey waxyaabo badan oo baaritaankooda lagu rafaadi lahaa. Halkan laguma soo koobi karo faa'iidada iyo wanaagga uu leeyahay Google-ka. Haddaba waxaan barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah labadii dhalinyaro ee abuurtay Google-ka. Ninka aan doonayo in aan ka sheekeeyo guushiisa waxaa lagu magacaabaa Sergey Brin. Wuxuu dhashay Sergey sanadkii 1973, wuxuuna ku dhashay dalka Ruushka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Moscow. Waxaa dhalay laba waalid oo Yuhuudi Ruushka ah, kuwa oo ayaga naftoodaba saynisyahano ahaa oona ka qalinjibiyey jaamacadda Moscow. Aabbaha wuxuu bartay cilmiga xisaabta, hooyadana culuumta sayniska. Kadibna waxay shaqaale u noqdeen xukuumaddii Ruushka ee Sofiyeedka ahayd. Markii dambena waxay cadaadis kala kulmeen xukuumaddii, taa oo aakhirkii keentay in laga soo ceeriyo shaqadii. Haddaba qoyska Sergey waxaa soo wajahay xaalad xun oo dhanka dhaqaalaha ah. Waxay ku dhowaadeen inay gaajo u dhintaan. Sidaasi daraaddeed, aabbihii reerka wuxuu go'aansaday in uu reerkiisa ula haajiro dalka Maraykanka. Markii ay Sergey iyo waalidiintiisuba tageen dalka Maraykanka, waxaa wanaagsanaatay xaaladdoodii dhaqaale, waayo wuxuu aabbihii shaqo macalinimo ah ka helay jaamacadda Maryland, halka hooyaduna ka mid noqotay shaqaalaha wakaaladda NASA. Sergey waxaa la geeyey iskuulka, waxaana lagu dhiirigeliyey inuu mustaqbalka noqdo saynisyahan weyn oo dunida caanka ah. Marka uu Sergey ku soo laabto guriga, waxaa xisaabta iyo sayniskaba u sharaxa waalidiintiisa, waayo waxay ahaayeen saynisyahano. Haddaba markii uu Sergey ka qalin bedeshay iskuulka, ayuu sanadkii 1990 ku biiray jaamacadda Maryland, taa oo aabbihii macallin ka ahaa, wuxuuna gaar ahaan ka mid noqday ardayda kulliyadda xisaabta iyo kombiyuutarka. 3 sano kadib wuxuu Sergey gacanta ku dhigay shahaado baaj ah. Kadibna wuxuu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Stanford. Halkaas ayuu iska xaadiriyey, wuxuuna bilaabay daraasaddii masterka. Inta uu jaamacadda dhiganayay ayay isbarteen saaxiibkiisa la aasaasay shirkadda Google ee lagu magacaabo Larry Page. Waxaana labadooduba soo wajahay inta ay ku guda jireen waxbarashada jaamacadda caqabado badan, waayo waxaa ku adkaatay helidda xogaha, welibana si dhaqsi leh. Waxay ku qasbanaayeen in xogta ay u baahan yihiin ka raadiyaan buugaag tiro badan, oo marmarka qaar waxay xog baaristaasi ku qaadanaysay maalmo iyo bilooyin. Dhibkan kaligood ma haysanin ee wuxuu ahaa mushkilad ka jirtay guud ahaan dunida. Haddaba waxay ku qasbanaayeen Sergey iyo saaxiibkiis in ay akhriyaan isla markaana rogrogaan buugaag badan oo buugaag ah si ay ugu helaan xogta ay raadinayaan. Sidoo kale xilligaasi waxaa jiray buugaag internet ah oo wax laga baaro, laakiin buugaaggaasi ma ahayn kuwa diyaarsan oo si sahlan wax loogu baari karo. Ayagoo iska sii liitay ayaa haddana waxaa jirtay xayeysiin badan oo dul saarneed buugaaggaasi, iyo dhahyadaasi oo dhib weyn ku hayay dadka wax baaraya. Haddaba Sergey iyo saaxiibkiis Larry ayaa iswaraystay, waxayna istusiyeen in ay jiraan caqabado badan oo hortaagan ardayda cilmibaarayaasha ah. Si mushkiladana looga baxo, waxay labadooduba abuureen bog yar oo wax laga baaro oo ay ugu tala galeen ardayda jaamacadda. Dhowr bilood kadib waxay arkeen Sergey iyo saaxiibkiis Larry wax ka yaabiyey, taas oo ahayd in boggii yaraa ardayda dhammaan wada adeegsanayaan oo wax ka baaranayaan. Intaasi waxaa sii dheer in ardayda jaamacadda dhigata dhibcahoodii kor u soo kaceen, taas oo sababteeda garan waayeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda. Laakiin baaritaan kadib la ogaaday in kor u kaca ardayda sabab u yahay bogga yar ay abuureen dhalinyarada da'da yar ee kala ah Sergey iyo Larry. Xilligaasi Sergey iyo saaxiibkiis waa dhalinyaro 20 sano jir ah, hamigooduna yahay in ay dunidan wax cusub ku soo kordhiyaan. Waxayna maalin walba ku mashquulsan yihiin sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoontooda.
haddaba shakhsiyaadka hal-abuurayaasha ah waa dhalinyaro oo wakhtigooda maal gashtay, ma ahan sida aan moodno oo ah in dadka hal-abuurayaasha ah yihiin shakhsiyaad waayeello ah oo hal lug xabaash ugu jirto. Inta badan dadka wax hindisa waxay u badan yihiin dhalinyaro, kuwa oo inta badan isaga tagay madadaalada tirada badan islamarkaana juhdi iyo wakhti badan ku bixiyey waxa ay jecel yihiin inay ka miro dhaliyaan, waxayna ka faa'iidaystaan tamarta iyo awoodda cusub ee jirkooda ku jirta, kumana beel dareeyaan wakhtigooda qaaliga ah wax adduun iyo aakhiraba toona anfac u lahayn. Waxaan kuu rajaynayaa in aad dantaada aqoonsato oo wakhtigaada qaaliga ah iyo awooddaada ka faa'iidaysato. waxaa kaa dambeeya xilli aadan lahaan doonin awoodda iyo tamarta hadda aad leedahay. Marka sii shaqayso, welibana si xoog badan u shaqayso, oo marnaba ha isu dhiibin caqabadaha tirada badan ee maalin walba ku hortaagan. Haddaba dhalinyaradan ayaa inta ay jaamacadda dhiganayeen shaqo abuurtay, taas oo ah samayntii ay abuureen Google-ka. Tanina waa guul, sababtoo ah inta badan marka aan jaamacadda dhammayno waxaan raadinaa shaqo, laakiin labadani ayagoo jaamacadda dhiganaya ayay shaqadii ay mustaqbalkooda ka shaqayn lahaayeen sii diyaarsadeen. Sergey iyo saaxiibkiis Larry ayaa lacag ka soo amaahday qaraabadooda iyo saaxiibadooda, waxayna aas-aaseen shirkadda Google ee aad maanta wada garanaysaan. Waxaad moodaa labadani wiil in ay ku daydeen labadii dhalinyaro ee dhigan jirtay isla jaamacadda ay hadda wax ka bartaan labadan, kuwa oo ahaa aas-aasayaashii shirkadda weyn ee kombiyuutarada samaysa ee lagu magacaabo HP. bal aan dib u milicsano qisada guusha ee tirsigeedu yahay 65. waxaa aasaasay shirkaddaani sanadkii 1939 laba tumaal oo lagu kala magacaabo William Hewlett iyo David Packard, waxaynu ku abuureen shirkaddaani maanta dunida caanka ka ah ee HP lacag gaaraysa $538, waxayna shirkadda magac uga dhigeen labada magac ee ugu dambeeya magacyadooda Hewlett iyo Packard, waxaana loo soo gaabiyey HP. haddaba maxay ahaayeen labadani tumaal ee abuuray shirkaddaani maanta dunida caanka ka ah ee aaladaheeda inta badan aan isticmaalno? wuxuu ku dhashay David Packard magaalo yar oo ka tirsan wilaayada Colorado. inta uu dhiganayay iskuulka ayaa laga dareemay hami sare, wuxuuna ku fiicnaa culuumta handasada iyo xisaabta. markii uu ka qalin jibiyeyna wuxuu ku biiray jaamacadda Stanford asigoona bartay tumaalnimo. inta uu wax ka baranayay jaamacadda ayuu la kulmay saaxiibkiisa la aas-aasay shirkadda HP, waxayna si wada jir ah u barteen cilmiga handasada, ayagoona ka qaatay jaamacadda shahaadada master ah oo dhanka tumaalnimada ah. shakhsiga labaad waa William Hewlett, wuxuuna dhashay sanadkii 1913 asigoona ku dhashay wilaayada Michigan. aabihii wuxuu macallin ka ahaa jaamacadda Michigan. muddo yar kadibna waxay qoyskooda u guureen magaalada San Francisco. Hewlett ayaa ka mid noqday ardayda jaamacadda Stanford, waxayna gudaha jaamacadda isku barteen saaxiibkiisa la aas-aasay shirkadda HP. hadda shirkadda waxay shaqaynaysaa in ka badan 80 sano, ayadoona shaqadeeda ka bilowday garaash yar oo ku yaala gudaha Palo Alto. wax soo saarkii ugu horreeyay ee shirkadda wuxuu noqday. haddaba Sergey iyo saaxiibkiis Larry waxay kireysteen garaash yar oo waxay ka dhigteen xaruntooda cusub. halkan ayay ka bilaabeen safarkoodii oo kolkii dambe ku qabsadeen suuqa tiknoolajiyadda adduunka. waxay shaqaalaysiiyeen 8 ruux. 8dan iyo labadooduba habeenkii guryahooda uma hoyin jirin ee waxay dhex jiifan jireen gudaha garaashka, waxayna ahaayeen shakhsiyaad raba inay meel mariyaan hankooda. waxay shaqadooda u hureen wakhti iyo maskax oo waxay geliyeen shaqadooda fikir badan. mar uu hadlay Sergey wuxuu dhahay, dhalinta waxay guush u arkayeen buur weyn oo aan la kori karin, laakiin aniga waxaan u arkay inay tahay guusha burca yar oo orod lagu kori karo. haddaba aragtiyada waa wax wanaagsan. haddii caqabadaha ku hor yaallo aad u aragto buuro waaweyn oo silsilado ah, waxaa kugu adkaanaya in aad guul ka gaarto. laakiin haddii aad u aragto burcooyin yaryar, waa hubaal in aakhirkii guul xaqiijinayso. Sergey iyo saaxiibkiis waxay boggoodii yaraa u bixiyeen magac uu maanta caanka ku yahay ee Google. isla maalmihii ugu horreeyey uu bogga hawada soo galayba waxaa soo booqday oo wax ka baartay in ka badan 10,000 oo baarayaal. guushaas ay gaareen darteed ayaa waxaa la soo xiriiray shakhsiyaad badan oo ganacsato ah, kuwa oo malaayiin dollar wata islamarkaana doonaya in bogga loo saaro xayisiin ama iidheh. laakiin Sergey iyo saaxiibkiis gebi ahaanba way diideen
in boggooda la saaro xayisiin. yacni waxay iska diideen lacag malaayiin dollar ah oo xaruntooda ugu timid. cid lacag diidayso ma jirto dunidani, laakiin waxay dareensanaayeen in kol dhow u imaan doonto balaayiin dollar. waxay ku micneeyeen sababta ay u diideen lacagta in ay tahay in aan la mashquulinin baarayaasha soo booqanaya bogga, isla markaana wax ka baaranaya. waayo adigoo wax baaraya haddii xayisiin meel walba ka soo boodo, waad wareeraysaa oo baaritaankaagii ayaa kaa qasmaya. hadda dadka maalin walba booqda bogga Google-ka ee wax ka baara waxay kor u dhaafayaan 3 bilyan oo ruux. waa bogga loogu booqasho badan yahay adduunka. waxaaba yar in qof wax baaraya uu tago maktabadda kadibna uu buug soo qaato isla markaana wax ka baaro. maba kugu soo dhacayso maktabadda gal ee waxa aad raadinayso ka dhex baadigoob buugaagta maktabadda yaalla. horey waxaad ka aadaysaa bogga Google-ka, asigaas ayaa inta badan wax laga raadiyaa. sababtan wax kale ma ahan ee waxa fudud waxa aad raadinayso in aad si sahlan ku hesho. sidoo kale waxay shirkadda awoodi kolkii dambe in ay soo iibsato shirkado badan oo dunida caan ka ahaa sida YouTube-ka. haddaba shirkadda Google qiimaheedu wuxuu maanta marayaa $150 bilyan oo dollar. waxaan loo dhididin sahal laguma gaaro. halkan shirkadda fadhi ku dirir iyo sheekada shaaha ma ku soo gaarin. Sergey wuxuu noqday qofka 10aad ee maanta dunidani ugu hodansan. hantidiisu waxay gaaraysaa $55 bilyan oo dollar. tani waxay ahayd sheekadii guusha ee wiilkii ka soo cararay dalkiisa asigoo naftiisa gaajo kala baxsanaya, laakiin maanta dunidii wax weyn ka bedelay.